ugu dambeyn afka ayuu furtay waa khaniis waa laga roone waa jeeb gadaal waxay ahayd erayada ugu badnaa ee maalmihii lasoo dhaafay aan lagu lahaa isaguna waa waamusnaa oo private ayuu geliyey accountigiisi waa tahay daba waxaynu doonaynaa in aynu isla eegno laba arrin baaritaanadii iyo dabagalkii lagu sameeyey maxaa ka soo baxay maxaase ka runa isaguse afka ayuu furtay oo waa uu ka hadlee muxuu ka yidhi ninkani ayaa waraysi laga qaaday wuxuuna sheegay in ay bishii soo gasho wax ka badan 25,000 oo doolarka Mareykanka ah isagoo weliba Soomaaliya jooga oon meel loogu dhaqaaqin sidoo kale wuxuu yidhi gabdhaha Soomaaliyeed dhammaantood waa walaalahay oo walaashay la dhalatay camal weeye oo isma geyno sidoo kale waxaa la weydiiyey maxaad ka shaqaysaa oo lacagta inta leeg xagee kaaga timaadaa wuxuuna sheegay in ay private u tahay oo uusan sheegayn inta wixii ka dambeeyay Soomaali maxaad ku taqaan waxa loo qaatay baaritaan oo waxa laga keenay cadeymo aad u tiro badan maxay tahay cadeymaha ninkana laga keenay ko waxa baaritaan lagu sameeyay ninkani iyo qaabku u dhaashto sidan ayuu u dhaashtaa waxa la yiri qaabku u dhaashanayo ee wax isu marinayo ee isu cadeynayo qaabkii lagu garanayay amaba ay ahaayeen hablaha ee aysan ahayn xeer iyo dhaqan uu rag leeyahay in aysan ahayn sida darteed ninkani qodobkaasi marka loo eego in uu yahay wixii lagu tuhmaya labo qodobka labaad waxa weeye qaabka uu libisto dharka uu xirto dhammaan waxa la keenay tusaale shaatiga uu xiranayo surwaalada uu xirto iyo waliba ookiyaalaha ama galaasiska indhaha ku xirto saddexdaba waxa la sheegay in ay yihiin kuwii dumarka ee aysan ahayn kuwii ragga ay lahaayeen halkaana iyaduna waxa laga keenay cadeyn kale cadeynta saddexaad ee laga keenay ninkan ayaa waxa weeye qaabku u soconaya ama isu jijabinaya ama uu iljabinaya ama ma garanaysaa waxa weeye socodkiisa iyo dhaqaaqiisa iyo hanaankiisu in aysan ahayn hanaankii ragga lagu garanayay sidoo kale waxay keeneen hay'adda uu ninkani u shaqeeyo iyo waliba fikiradii uu ka hadli jiray sanadka markuu ahaa 2020kii waxa uu ka hadli jiray wuxuu u ololeyn jiray iyo hay'addii uu ka shaqeynayay ayay sidoo kale keeneen intaa waxa ka darnaa marka dadka uu repost dhaha TikTok-giisa tusaale TikTok marka aad ku jirto waxa jira muuqaalo aad ka hesho muuqaalo ma garanaysaa ku qanciyo ama ku soo jiito muuqaalada ayay dadku waxay ku sameeyaan repost sidoo kale repost waxa loo sameeyaa qofka saaxiibka ah oo aad doonayso in asxaabtaada waxa weeye ay arkaan oo ma garanaysaa share out aad u sameynayso camal ayaa waxa loo sameeyaa repost saadarteen ninkani muuqaalada uu repost dhaho oo uu jecel yahay uu ka helay oo dhan waxay noqdeen baa la yiri 90% muuqaalada dadka khaniisiinta ah ama dadka laga roonida muuqaaladooda ayuu share gareeyaa oo uu repost gareeyaa ayaa la yiri oo waayo qofku wuxuu repost gareeyaa ama repost u dhaho waa la arkayaa sidoo kale waxay galeen ama ay baaritaan ku sameeyeen Instagram-kiisu waxa la yiri dadku uu follow gareeyo ama waxa weeye isaga uu follow gareeyo oo uu raacay dhamaantood waxay u badan yihiin baa la yiri dadka nooca ah ama lesbianka ama khaniisiinta loo yaqaan weeye baa la yiri dadkii uu isaga follow gareeyay oo uu raacay intaan idin sheegay iyo ina kale oo badan ayaa laga soo bandhigay oo la keenay oo ma garanaysaa dadka lala wadaagay isaga ayaa maanta ka hor yimi oo waxa weeye arrinka dafiray muxuu yiri marka bal ila dhageysa marka hore ina hadlo afkii akal furo qorsheygo idil ma ahayn laakiin maadaama dadku inda guraadyaal ay yihiin oo wixii loo sheegay way aadayaan soo taasa iga hadalsiinaysa okay laba mid ka hadal rabaa mid lacagta iyo mid repostiga okay tan lacagta wali sidii ku taaganahay maxaa ka bedeli kartaa shaqadeeda lacagteeda everything private way so the only thing I need waxa waaye platform ma labada heystaa internet wala wada heystaa aqliga laga shaqeysiyo intaas in ka badan isbandhig gareyn kartaa mid repostiga warad ana amna gay qaniisi wuxuu dhow ma ihi laba jirka xal la shaxtaa ma ka yeelay ashraf qaniisi cid ka yeelaysa malaha taasna waxa idinka keenayso waa kuleelka iyo shiidka iyo faqiirnimada idinka keenayso soo mid repostiga waxa ugu yeestii marka Arial muxuu repost u dhahay Arial waxa waa Kimi Kayli dadkaas waa teamkaas waay okay so Zelensky soo idil marka ayaanta dagaalka Palestine iyo Israel is dagaalayeen teamkiisa idil wada Israel ay wada ahayn inuu ka soo dhaxbaxay oo wuxuu taageeray Gaza taageeray soo dadku idil u wada kaceen so arintaas ay ahayd wuxuu yiri waxaan ku adkaysanaya shaqadeedii howlaha lacagta meesha ka keenay inay private tahay wuxuu ku doodayaa in uusan khaniis ahayn ama uusan waxa weeye lesbian ahayn waa tahay mid saddexaad uu ku doodaya waxa weeye ninkani uu repost soo dhaho muuqaaladiisa mar walba soo qaato oo ma garanaysaa uu xayeysiinayo ee khaniiska ay macnaha Gaza taageero leeyahay ummadda dhan u kacday marka wuxuu leeyahay raggii uu ku dhex jiray khaniisiintiisa iyo dadkii ku dhex jiray
ayuu ka soo baxayo sidaa darteed Gaza ayuu taageeray sidaa ayaan aniguna isaga u taageeray buu leeyahay waa tahay Soomaalidu waqtigan la jooga khaniisiinta ma ahan qof iyo labo waa dad aad u badan kuwan dhan oo idin muuqanayo dhammaantood oo arkaysaan waa dad khaniisiina oo u ololeeyo in Soomaalidu dhexdeeda laga helo dad badan oo khaniisiina dad badan oo ma garanaysa khaniisnimada iyo waxa Soomaalida dhexdeeda ku faafiyo Soomaali dhaqankii doorisay ee nidaamkii ka tagtay ninkan ugu horeeyo oo waxa jira dad badan oo mar hore hayaamay dad badan oo mar hore xadkii ka tagay sidoo kale Soomaali gaalowday oo badan oo diintoodii ka baxay way jiraan oo aad ayay u badan yihiin waa tahay hadaba wiilkani markaad qiimeyso cadeymaha laga keenay sidoo kale markaad qiimeyso isaga hadalkiisa muxuu ku leeyahay adigu sida ayuu kuula muuqdaa ma wuxuu kuula muuqdaa nin waxa lagu sheegaya ay sax tahay oo ay ka muuqato mise wuxuu kuula muuqdaa nin laga been abuuranayo oo waxa aan shaqo ku lahayn hadaba ra'yigaaga iyo waxaad ka aaminsan tahay adigu xagga faalada inoogu soo qor